الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه walaalayaal waa fadhi ka mida fadhiyadeennii inoo soo taxnaa ee aan kaga hadli jiray wixii wanaaga xumaantana aan iskaga reebi jiray fadhigani wuxuu ku saabsan yahay ikhwaani fillaah maanta inaysan bannaanayn karaahiyana ku soo aroortay in la fadhiisto ama la seexdo ama lagu tukado meel hoos iyo qorrixi ay iska qabtaan ama ay ku kulmaan arrinkaana waxaa inooga digay suubanaheennii moxamed nabadgeliyo iyo naxariis eebbaha u siyaadiye waxaa la doonayaa markaa ama dhanka qorraxda wada-aad ama dhanka hooska wada-aad laakiin iska jir inaad hooska iyo qorraxda dhexdooda aad fadhiisato axaadiid saxiixa ayaana arrinkaa ku soo arooray wa can rajulin min asxaabi الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalama naha الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalama can اljuluusi bayna الضaxi wالdilli wa qaala majlisu الshayطaani wuxuu yidhi nin asxaabta nebiga ka mida salى اllahu عalayhi wasalam saxaabada haddii magacooda la sheegi waayana oo la yidhaahdo wa can rajulin min asxaabi nebiyi la yidhaahdo waxba kama dhibayso maxaa yeelay saxaabadu kulluhum cuduul kulligood caadiliin weeye wuxuu yidhi ninkaa saxaabada nebiga ka mida sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu nahiyey in la fadhiisto meel hoos iyo qorraxi ay iska qabtaan wuxuuna nebigu sala allahu calayhi wasalam arrinkaa ku cileeyey majlisu shaytaan inay tahay meel shayaadiintu ay fadhiistaan inay tahay xadiidka labaad ee ku soo arooray arrinkaas rawaa abu daawuud can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala abu qaasim idaa kaana axadukum fi shamsi faqalasa canhu dillu wa saara bacduhu fi shamsi wa bacduhu fi dilli falyaqum nebigu sala allah alay wasalam wuxuu yidhi haddii midkiin uu fadhiisto meel hoos iyo hadh iyo qorraxi ay iska qabtaan ha kaco ayuu yidhi nebigu sala allahu alay wasalam oo meesha ha ka kaco xadiid kale saxaabiga la yidhaahdo xaasim wuxuu yidhi ra'aanii annabiyu sala allahu calayhi wasalam wa ana qaacidun fi shamsi faqaala taxawal ila dilli wuxuu yidhi nebiga ayaa i arkay buu yidhi anigoo fadhiya qorrax fadhiya meel qorrax iyo hoos ay iska qabtaan anoo fadhiya ayuu nebigu sala allahu calayhi wasalam i arkay wuxuuna igu yidhi xagga hooska u wareeg markaa nebigu sala allahu alay wasalam axaadiidtaas uu ku nahinayo waxa weeye inaan la fadhiisan karin meel hoos iyo qorraxi ay iska qabtaan lana seexan karin waana meelaha ay shayaadiintu ay fadhiistaan haadaa wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu